wadahadallo la isku dayay in lagu gaaro heshiis dhexmara dowladda Puntland iyo dowladda federaalka oo muddo maalmo ah ku socday ogaan la'aan saxaafadeed ayaa arrimaha ka soo baxaya ay u muuqdaan mid lagu guuleysan layahay. dowladda Puntland iyo dowladda federaalku waxay isku hayaan arrimo ay ka mid yihiin wufuudda dalka dibadiisa uga baxaysa dowladda federaalka, kaalinta ay Puntland ku yeelanayso, canshuuraadka soo gala dowladda Puntland iyo habsaami qaybeedka deeqaha waxbarasho ee dibadda. guddiyo saddexaad loo saaray inay soo saaraan isfahanka labada dhinac ayaa waxaa marar badan wax ka bedel lagu sameeyay qoraallo ay soo saareen qodobadaasoo lagu bedelay qodobo kale oo laga doorbiday, iyada oo labada dhinac ay iska ilaalinayaan qalinku inuu wax raaciyo qodobadana ay xadidaan. waxaa howluhu ay sii cakirmeen markii dowladda Puntland si adag u soo bandhigtay sida ay uga warqabto deeqaha waxbarasho ee dalka dibadiisa laga helo, sida loo maareeyay sida ardayda Puntland u dayacan yihiin. arrimaha kale ee khatarta leh ayaa waxay tahay markii la soo qaaday habka canshuuraha iyo dhaqaalaha soo xarooda dekedaha iyo garoomada iyo goobaha ummadda ka dhaxaysa saamiga dowladda dhexe ay ku yeelanayso, taasoo iyadana ay adkaatay in Puntland laga dhaadhiciyo. dastuurka Puntland ayaa wuxuu xaq u siinayaa Puntland inay si gaar u maamulato arrimaheeda dibadda iyo arrimaheeda gudaha. dhanka kale, ra'iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka iyo wafdigii la socda ayaa waxay booqasho ku tageen maamulka la baxay Galmudug, waxaana halkaa uga qayb galeen xaflad lagu qabtay koonfurta magaalada Gaalkacyo oo iyana lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka Cumar Cabdirashiid Cali iyo wafdigiisa. halkaa waxay kulamo kula qaateen mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka la baxay Galmudug oo uu ka mid yahay madaxweynaha cusub Maxamed Axmed Caalim iyo madaxweynihii hore ee Galmudug Danjire Kiimiko. halkaa waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka Cumar Cabdirashiid Cali oo uu hambaliyeeyay maamulkan cusub iyo amnigan iyo kala dambeynta hadda lagu soo dabaalay koonfurta magaalada Gaalkacyo ee deegaamada Galmudug. runtii dad waxaa tihiin qayb ka soo qaata xalooda waddanka, حتى هدي فدرالك وينخص ضاهو وحا مسؤولية الخسارة تاقل خسارتيس. كنت هنا وحان فيليا قالوا مدوك إنه يكون نقضنا أنت كنت تيرك ووين فدرالك حق الحياة. كنت سفرك كانوا حابة سنة صدح مدحوها ولا تشي مدة كلام وحاء سيد لوح وجلنا حريرك قلمودك iyo federaalka. مدة saddexaad waxay sida loo xoojin lahaa xiriirka Galmudug iyo Puntland. ha ahaatee markii halka imaanay waxaa noo soo duushay in xawaayro khilaafa ka jiray Galmudug, mas'uuliyadda maaragtay xukunka. annaga runtii waxaan rabnaa Galmudug oo meel u wada socdaan. insha Allah waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo waxyaabaha khilaafka yaryar oo hadda jira inaan annaga federaal ahaan aan isku dayno inaan xalino bidillah. waxa weeye insha Allah haatan maalin loo maalmood ka qasii darsanaya si aan isku dayno arrintan inaan xalino. runtii sideedaba dhibka jira waxay Soomaalida guud ahaan waxaan ugu yiri waxa la dhaho tanasulka, waana sideeda waddanna waa in la isu tanasulo, waa in la isu dulqaato. 19 sano waxaan kusoo jirnay burbur sababtiiba ay u badan tahay haddaan aniga ku jirin aan ciidayo. marka waxaan rabnaa waxaas inay halka ka dhicin insha Allah waan ku dadaalaynaa wax kastoo aan sameyn karno. idinka waxaan ka rajaynaynaa inaan gacan idinka helno bidillah. arinta kale tan waanta waxaan rabaa inaan dhageysto laakiin aan nooleynay si gaar ah hadina yani waxyaabaha inta gobol ahaan uu u baahan yahay in federaalka uu qabto. runtii taas mas'uuliyiinta ka hadli doona bidillah. laakiin hal mid aan leeyahay anigu haddii waan ku heebsadaa halka kan dagaalka ma aha waa dagaal aan guriga la qabto. intaa kadib ra'iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya wuxuu shir jaraa'id la qaatay madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug Maxamed Axmed Caalim oo hadda haya maamulka deegaamada Galmudug. kulankan ayaa ku soo aadayay xilli uu jiro isfaham waa siyaasadeed oo u dhaxeeya siyaasiyiinta Galmudug. Cabduladiif Cabdiraxmaan Warsame, telefishinka Universal, magaalada Gaalkacyo.